وحاوي لقى بالله مانتا aniga ciidankayga iyo ummadayda waxaa dawladda dhexe baanu ka sugaynaa taariikhda oo ah 18 bishii saddexaad waxaa weeye oon u sheegaynaa ciidankanaga iyo ummadanaga intaba dawladda dhexe inaan ka qayb qaadano laga bilaabo maanta waxaa weeye dawladda dhexe baan anagu taageersanahay waana ka gudubnay haddii aan la guusan ogol yahay maamulka cusuriga ahaa ee dadka iyo dadkaba ummadda indhaha ka riday waa ka gudubnay haddana waxaa weeye guddoomiyihii degmadan wayla fadhiyaa ciidankiina waa kan way ku soo dhaweynaynaa guddoomiyaha anigoo ah maxamed cabdi cilmi taliyaha amniga ee magaalada kulbiyo waa mahadsantahay halkani waa asagana guddoomiyihii deegaanka kulbiyo magacaada saddexan bismillaah aadan xuseen axmed waxaan ahay guddoomiyihii deegaanka kulbiyo waxaan in badan cabasho ka muujinaynay maamulka Jubbaland asaga oo aan u arkaynay maamul cunsuriyad ah bulshadii dhibaateeyay dalkii dhibaateeyay xiriirkii dawladda dhexe dhibaateeyay ummadda Soomaaliyeed oo dhan dhibaato ku ah ayaan u arkaynay maamulka Jubbaland ee jiro waxaan hadda halkan ka soo jeedinayaa in aan diyaar u nahay in aan la shaqeyno dawladda dhexe ee la aqoonsan yahay ee Soomaaliya madaxweynaheedan u yahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo sidaa awgeed waxaanu aad codsanaynaa oon deegaan ahaan u codsanaynaa oo degmadan aan joogna joorro la yidhaahdo aanu ka codsanaynaa in gacan degdeg aan nala siiyo si aan uga gudubno maamulka cunsuriyadda ee dalka ka jiro na dhibaateeyey hay-adihii caalamiga ahaa beeshii caalamka adduunka wixii jiray intaba naga dharyaamiyey waxaan idin caddaynayaa inuusan weligii soo istaagin degmada lihaa joorre ninkaas wuxuu u dhexeeyaa afmadow iyo dhoobley sidaa awgeed waxaan codsanaynaa in dawladda ay si degdeg ah gacan noo siiso shacab iyo ciidanba intaasaan codsanaynaa annagoo ku hadlayna magaca bulshada annagoo ku hadlayna magaca dalka intaas dhammaan maxaan ciidamada nala siiyo si degdeg ah naloo soo gaaro dawladda ay noo soo gaaro maamulkan hayno wax dambe oon dib u sii dhigano meel oo jiro marka arrintaas inaan dib u dhigano waa nooma dhigto marka maamulkii hore oo jirana wax qabil maamul ma jiro waa cunsuriyad la degtay dalka iyo dadkiba waana nin qabiil ah waxaan aad u codsanaynaa in gacan nala siiyo annaga oo daacad ka maanta hadalka aan ku hadlayno meel baad ka dhacdeenna aan na lahayn sidaasaan ka codsanaynaa dawladda dhexe ee uu madaxweynaha ka yahay maxaa Cabdullaahi taliyahay waa intaa oday haddii aan nahay ciidanka qaranka Soomaaliyeed baan nahay maanta laga bilaabo waanu ka gudubnay wixii ma garanaysaa taliska qabiilka ah waanu ka gudubnay cusuriyaddii dadka ku haystay isaga oo aan ognahay oo aan ahayn maanta wax maamul aan ahayn isagoo aan ognahay oo waqtiga u dhacay isagoo xilligan hadda aan ku jiro dadka hagaagaamo socodka qabiil baan magaraysa hadda ku nool waxaa weeye annagu waan ka gudubnay qaranka Soomaaliyeed baan nahay maanta laga bilaabo qaranka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaanu ka codsanaynaa si degdeg ah inay ma noo soo gaaraan si degdeg ah inay deegaanka joorre ay u soo gaaraan magaalada khaasatan kulbiyo waa ka baxay anigoo ku hadlaya afka ciidanka Jubbaland Jubbaland afkiisa anoo ku hadlaya inaan ka gudubnay cusuriyaddii Axmed Madoobe aan ardaynaya
aan ka gudubnay cusradii Axmed Madoobe iyo daba dhilifkiisiiba saacaddaa laga bilaabo qaranka Soomaaliyeed baan annaga oo waswaas iyo cabsi midna ka qabin deegaankanaga iyo ciidankanaga iyo bulshadanaga intaa midna annagoon cabsi ka qabin waxaan kala taaganahay heli hooba assalaamu calaykum